رسول الله maantay oo maalin sabti ضبياغدا bisha December waxa ka dhacay ex control qarax weyn oo saaran lagu soo raray gaari xamuul qaraxaas gaariga qaraxaas waday wuxuu isku qarxiyay isgoyska ex control afgooye wuxuuna sababay dhimasho badan iyo dhaawac badan fara badan dhimashada tira rasmi ah ilaa ay hadda ma hayno dhaawacu waa sagaashameeyo sida hadda ay noo sheegeen goobjoogayaashii tirada dhimashada oo rasmigaana gadaal ayaan ka ogaan doonaa laakiin ma yara dhimashadaas waxay u badnayd arday u socotay dugsiyadaha iyo jaamacadaha number weyn ama tiro badan oo ardayda ay waxay ahayn jaamacadda banaadir inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun allah u naxariisto dadkaas ku dhintay halkaas waxay ahaayeen dad aan waxba galabsan shacab rayid ah intooda badan waxaa laayay dadkaas dhaqaaqabayaasha ku soo duulay dalkeena Soomaaliya ma aha markii ugu horeeyay oo ay qaraxa noocaas oo kale ay la beegsadeen mar kasta oo ay arkaan meel zaxmo ama bulshadu isugu badan tahay waxa ay ka caado dhigteen inay sidaas oo kale ay u laayaan ilaahay subhanahu wa ta'ala ayaan ka magan galnay shartooda bulshada Soomaaliyeedna waan hubaa inay kala garteen cadawgooda iyo saaxiibkooda waxa aan halkaan rabaa inaan uga mahad celiyo ciidamadii amniga shafka u dhigay ka badbaadiyay dhaqaaqabayaashu hagardaamada ay soo abaabuleen inay u gudubto magaalada waxa ay doonayeen magaalada inuu u soo gudbo qaraxa si goobo muhiim ah ayo mas'uuliyiin muhiim ah oo u baabi'iyo aadiyaadan uga mahad celinaynaa waana wixii ay u qaateen tuutaha iyo qoriga inay khatarta shacabka Soomaaliyeed soo gaari lahayd ay ayagu xabadka u dhigaan Allah subhanahu wa ta'ala ayaa uga baryaynaa inuu caafimaad degdeg ah siiyo dadkii Soomaaliyeed ee halkan ku waxyeeloobay wiilasha naftood horeyaasha ah ee u taagan har iyo habeen ka shaqaynta amniga iyo ka hortagga cadawga noocaas oo kale ah waa uga mahad celinaynaa waana garab taagannahay biidnillaahi alkariim intaas ayaan rabaa inaan iraahdo halba sida ay wax noqdaan tirada dhaawacyada oo rasmi ah iyo tirada dhimashadaba mar dambe ayaan la wadaagi doonaa meediya wabillahi tawfiiq. Assalaamu calaykum.